kulan wacan u wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo nacfi media waxaan ku faraxsanahay in muddo kadib aan halkan dib ugu kulmeyno maanta waxaynu ka hadli doonaa faa'iidada cajiibka ay leedahay saliidda qumbaha ama coconut oilka faa'iidooyinkeeda badan waxaa ka mid ah in ay yareyso baruurta jirka iyo in ay dheelitirto hormoonada saliid qumbaha waxaa la sheegay in ay leedahay faa'iidooyin tiro badan gaar ahaan caafimaadka bini'aadanka haddaba nala sii joog inta aanu faahfaahin ka bixin doono ama halkan aan idinkugu sharaxi doono 14 faa'iido oo dabiici ah oo ka dhigaya saliid qumbaha mid aad u qiimo badan isla markaana waxtarkeedu aad u sareeyo si aad si buuxda ugu fahanto faa'iidooyinka saliid qumbaha fadlan daawo muuqaalkan ilaa dhamaadka marka hore aynu fahanno sababta saliid qumbaha ay u tahay mid gaar ah ahmiyadeeduna aad u sareyso saliid qumbaha waxaa ku jira nafaqooyin muhiim ah sida dufanta MCTs-ka loo yaqaano iyo lauric acid iyo antioxidants nafaqooyinkan waxay kor u qaadaan caafimaadka guud waxayna saliid qumbaha ka dhigaan mid ku habboon dawooyinka dabiiciga inta aanan bilaabin fadlan subscribe inoo saar channelkan ku dhufo gambaleelka si aad u seegin muuqaalada cusub ee halkan aan kusoo gudbino haddii aad xogtan faa'iido badan u aragto ama waxtarkeedu aad ugu riyaaqdo like inoo saar oo la wadaag asxaabtaada haddaba 14 faa'iido ee dabiiciga oo ay leedahay saliid qumbaha ayaanu halkan ku sharaxi doonaa midda koobaad yareynta iyo baabi'inta baruurta iyo sidoo kale xaydha jirka saliid qumbaha waxaa ku jira maadada aynu sheegnay dufanta MCT taasi oo kor u qaada dheefshiidka jirka waxayna caawisaa gubista baruurta cuntada haddii aad ku darsato waa mid waxtarkeedu aad u sareeyo qof kasta oo doonayana in uu miisaanka dhimo uu aad ugu riyaaqi karo talabaad dheelitirka hormoonada dufanka caafimaadka leh ay leedahay saliid qumbaha waxa ay taageertaa samaysanka hormoonada gaar ahaan kuwa thyroidka iyo qanjirada adrenal waxayna hoos u dhigaan walbahaarka ama cortisol sidoo kale taageeridda dheefshiidka saliid qumbaha waxay leedahay awood ka hortagidda bakteeriyada waxyeelada leh ee caloosha taasi oo kor u qaada caafimaadka mindhicirka iyo dheefshiidka nambarka 4 waxay taageertaa dib u soo celinta ama dib u nooleynta xasuusta sidoo kalena waxa ay ka hortagtaa cudurka Alzheimer's loo yaqaano ee shaqada ku leh dhanka xasuus yarida ama xasuus beelka cilmi baaris ayaa muujisay in maadada xambaarsan saliid qumbaha ee dufanteedu ay ka mid tahay maskaxda ay siin karto tamar kale taasi oo faa'iido u leh dadka qaba cudurka Alzheimer's ee xasuus beelka ama hilmaamshaha loo yaqaano loss of memory haddaba qaadashada hal qaado ka yar maalintii waxay taageeri kartaa caafimaadka maskaxda sidoo kale waxaa leeyahay uduga iyo carafta saliid qumbaha waxay dejiyaan maskaxda waxayna dejiyaan kacsanaanta neerfaha waxay yareeyaan stresska iyo walbahaarka iyo walwalka saliidan waxay ku habboon tahay marka la isticmaalayo gaar ahaan dhinaca carfiska sidoo kale waxay ka hortagtaa fangayga loo yaqaano candida haddaba saliidan waxay leedahay awood ka hortagidda fangayga taasi oo maadada ay ku jirto dilaa ay u tahay khamiirka iyo waxyeelada kale ee jirka ay gaarsiin karto maadadaasi waxay taageertaa caafimaadka ilkaha saliid qumbaha waxay la dagaalantaa bakteeriyada keenta daloolka iyo xanuunka ciridka afku dhaqista saliid qumbaha 10 daqiiqo maalintii waxay yareysaa bararka iyo huurada ilkaha waxa leeyahay waxa ay hoos u dhigtaa oo ay xasilisaa ama ay xoojitaa hoos u dhigida sonkorta dhiigga maadada saliid qumbaha ku jirto waxay ka caawisaa xakameynta heerka sonkorta dhiigga gaar ahaan dadka qaba sonkorowga sidoo kale waxay ugu tartaa oo ay wanaagsan tahay caafimaadka timaha saliid qumbaha waxay gashaa timaha gudaha waxayna ilaalisaa qoyaanka waxay yareysaa dadka daadashada timaha qaba waxayna ka hortagtaa dandruffka agoolka iyo jajabka iyo kala gogo'a timaha sidoo kale marka si toos ah maqaarka loo mariyo saliid qumbaha waxay daweysaa cudurrada fangayga iyo finanka kala gedsan ee dadka jirkooda ka soo baxo tan xigta waxay taageertaa cholesterolka cilmi baaris ayaa muujisay in saliid qumbaha ay kordhiso cholesterolka wanaagsan ee HDL taasi oo wanaajisa caafimaadka wadnaha
waxay xoojisaa lafaha iyo ka hortagga cudurka arthritis-ka, lafa xanuunka iyo kala goysyada. Saliid qumbaha waxay kordhiyaan nuugista calcium-ka waxayna yareeyaan caabuqa, taasi oo ka caawisa qofka qaba xanuunka kala goysyada. Waxa ay inta badan bogsiisaa nabrada kala gedsan ee yaryar, jeexjeexitaanka jirka, lugaha iyo maqaarka cagaha, iyo cudurka eczema loo yaqaano iyo psoriasis aan yiraahde oo ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee dadku ay ka dhaxlaan cudurrada nabraha keena. Sidoo kale waxay xoojisaa difaaca jirka. Lauric acid-ka iyo sidoo kale antioxidant-ka ku jira saliid qumbaha waxay xoojiyaan difaaca jirka waxayna ka hortagaan cudurradan. Nooca saliid qumbaha ee ugu fiican. Haddaba dooro saliid qumbaha organiga ee extra virgin-ka amaba virgin loo yaqaano oil ama cold pressed maadaama ay ilaaliso nafaqooyinka dabiiciga kana madax bannaan waxyeelada ku leh jirka. Saliid qumbaha waa daawo dabiici oo aad u faa'iido badan. Waxay taageertaa dheefshiidka, gubista baruurta, caafimaadka maqaarka, timaha iyo difaaca jirka. Had iyo jeer la tasho dhakhtarka ka hor inta aadan isticmaalin noocyada kala gedsan ee saliid qumbaha. Isticmaal talooyin qaado caafimaad, isla markaana macluumaadkan waxaan ugu talagalnay inuu yahay mid wacyigelin, mana bedelayo talada amaba la tashada dhakhtarka ama la talinta dhakhtarka hadba sida aad u taqaano. Waad ku mahadsan tahay in aad nala joogtay muuqaalkan. Waan sii wadi doonaa waxtarka kale ee faa'iidada ay leedahay qumbaha. Saliid qumbaha boqolkiiba 90 waxay ka samaysan tahay dufanka acidka ee loo yaqaano fatty acid, kaasi oo wax weyn markaasi waxtar u leh jirka bini'aadanka. Dufanka kale marka uu qofka cuno waa in jirka uu kala soocaa, balse dufanka saliidda qumbaha marka uu galo jirka waxaa si toos ah loo geeyaa beerka si tamar ahaan loogu isticmaalo. Marka dufankani tamar ahaan loo isticmaalana waxa uu daawo u yahay qalalka iyo sidoo kale cudurka loo yaqaano labibada oo ah mid ku dhaco qaybo ka mid ah maskaxda oo kontarosho dhaqdhaqaaqa murqaha. Qaybo ka mid ah dunida waxay u tahay cunto aasaasi ah, qarniyo badanna ay dadku isticmaalayaan. Waxaa jirta qowmiyado loo yaqaano Falklands oo degta qaybo ka mid ah dalka New Zealand. Cilmi baaris la sameeyay qowmiyadaasi waxaa lagu ogaaday in aanaba lagu arkin xanuunka wadna qabadka ee heart attack, kaasi oo ka yimaado xididada wadnaha oo xidhmo. Sababtoo ah waxay tahay in cudurradan amaba cuntada ay cunaan boqolkiiba 60 uu yahay geedka qumbaha. Cayilka wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka ugu waaweyn dunida maanta haysto. Saliid qumbuhu waxay ka mid tahay waxyaabaha yareeya cayilka. Waxaa jirta daraasaad ku talisay in markaasi haddii la qaato 15 ilaa 30 garaam oo qumba ah maalintii in ay gubayso 120 kalori oo jirka ka mid ah. Haddaba haddii aad rabtiin in aad cayilka iska ridin, ku dadaal isticmaalka saliid qumbaha adigoo ka fogaanayo dawooyinka halista badan ee la sheego in ay cayilka lagu yareeyo. Saliid qumbaha waxaa ku jira aashito loo yaqaano lauric acid, taasi oo awood u leh in ay disho noocyada kala duwan ee jeermiska sida fangayga, bakteeriyada iyo qaybaha kala duwan. Saliid qumbaha waxay yareysaa khatarta cudurka kolestaroolka ama dufanka dhiigga. Saliid qumbaha waxay timaha ka ilaalisaa waxyeelada, waxayna inta badan qoyska amaba ay qoysaa maqaarka, kororka iyo timaha ayaa la marsadaa waxayna hagaajisaa muuqaalkooda. Cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in saliid qumbuhu ay u fiican tahay dadka maqaarkoodu qalalan yahay. Saliid qumbuhu waxa ay yareysaa khatarta qalalka. Tijaabo la sameeyay amaba lagu sameeyay caruur qabtay cudurka qalalka oo cunto looga dhigay qumbe ayaa lagu arkay in qumbuhu uu caawin karo in uu yareeyo qalalka. Guud ahaanna intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkeena maanta. Haddii aad imika nagu soo biirtay nagu cusub tahay, subscribe inoo saar channelkan. Muuqaalo badan ayaad halkan ka heli doontaa haddii Rabbi raalli ka noqdo. Anigoo Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cabdiraxmaan J ayaa idinla socodsiinaya.